magaalada Gabileyna wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo wasiirka wasaaradda beeraha ee Soomaaliland ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismo cusub oo loo dhisayo wasaaradda horumarinta reer miyiga ee magaalada Gabiley. warbixintan waxaa Gabiley ka soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkacase. wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Khadra Xaaji Maxamed iyo wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Farax Cilmi Geedoole ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay dhismo cusub oo wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu ku yeelanayso magaalada Gabiley. dhagax dhigga dhismahaasi cusub ayaa waxa kale oo goobjoog ka ahaa barasaabka gobolka Gabiley Yuusuf Ibrahim Geedi, barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Case, isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Gabiley Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Gaboobe iyo isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Fadxiye Yuusuf Ciise, taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Gabiley iyo marti sharaf kale. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Khadra Xaaji Maxamed, waxaana hadaladeedii kamid ahaa maanta ay taariikh weyn tahay annaga noo tahay waliba xafiis ahaan ay noo tahay waayo xafiis kumaanu lahayn wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga way lahayn xafiis. maanta waa annaga dhagax dhignay waanaanu ballan qaadnay inaanu haddii la dhisayo dowladda Soomaaliland budgetka ugu darto wasiirku budgetka ugu daray Soomaaliya insha Allah bidmillaahi kariim sida ugu dhaqsaha badan leh ayaanu u soo dhisaynaa. wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Farax Cilmi Geedoole iyo barasaabka gobolka Gabiley oo iyaguna munaasabadaasi dhagax dhigga ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa dhagax dhiggan maanta loo sameeyay wasaarad aad iyo aad muhiim ah oo ah wasaaradan laga maarmaynin howlaheega. runtii wasiir Shukri oo anigu aan maalintii la magacaabay aan moogtahay dareemay in wasaaraddii la badbaadiyay. waa markii ugu horeysay ee loo dhagax dhigo dhismo ay ku yeelanayso wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu magaalada Gabiley. Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkacase, Somali Channel, Gabiley. magaalada Gabileyna wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo wasiirka wasaaradda beeraha ee Soomaaliland ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismo cusub oo loo dhisayo wasaaradda horumarinta reer miyiga ee magaalada Gabiley. warbixintan waxaa Gabiley ka soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkacase. wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Khadra Xaaji Maxamed iyo wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Farax Cilmi Geedoole ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay dhismo cusub oo wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu ku yeelanayso magaalada Gabiley. dhagax dhigga dhismahaasi cusub ayaa waxa kale oo goobjoog ka ahaa barasaabka gobolka Gabiley Yuusuf Ibrahim Geedi, barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Case, isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Gabiley Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Gaboobe iyo isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Fadxiye Yuusuf Ciise, taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Gabiley iyo marti sharaf kale.